الرحمن الرحيم maanta oo ay tahay 24 bisha November 2019 waxaan xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga wadaniga Soomaaliyeed ku qabanayaa war-saxaafadeedkan ku saabsan shirkii xisbiyada siyaasadeed dalka ay shalay la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lala wada socdaba madaxweynaha ayaa casuumad u fidiyay shir ah dhammaan xisbiyada siyaasadeed dalka waa la aqbalay inta badan boqolkiiba 90 33 xisbi ayaa isugu timiday oo sharci ah oo diiwaan gashan oo kamida xisbiyada siyaasadeed dalka waliba aqlabiyadooda aad u sareysa madaxweynuhu marka shirku bilowda shalay villa Soomaaliya wuxuu ka bilaabay soo dhaweyn iyo marxabeyn xisbiyada siyaasadeed dalka oo markii ugu horeysay ay tahay taasoo na tusaaleysay in madaxweynuhu diyaar u yahay inuu la wadaago talooyinka siyaasadeed dalka saamilayda siyaasadda oo xisbiyadu ka mid yihiin soo dhaweyn kadib wuxuu noo sheegay in ujeedada casuumaddu ay aheeday in la isbarto iyo in wixii xog ah la wadaago intaas ayuu ajanduhu ahay madaxweynuhu soo dhaweynta kadib annaga ayuu nagu soo wareejiyey inaan ka hadalno munaasabadda xisbiyada shalay shirka fadhiyay oo ah kuwa ugu culus ee ugu tirada badan ama aqlabiyadda xisbiyada siyaasadeed dalka arrimo aada muhiim u ah ayay madaxweynaha kala hadleen waxaan u jeedinay su-aal muwaadiniinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed isweydiinayo oo la xiriirta marka waqtiga dowladdan loo cayimay uu dhamaado meesha loo socdo boqolkiiba boqol xisbiyadu iyagoo taladooda wada dhiibtay xisbi kastana hadlay waxay tilmaameen in ummadda Soomaaliyeed uga fadhido dowladda madaxweyne Farmaajo inay fuliso doorasho xor ah oo shacbigu dooranayo madaxdiisa mustaqbalka lagu dooranayo sanduuq laguna tartamaya xisbiyo siyaasadeed talooyinkaas ay soo wada jeediyeen dhammaan xisbiyadu iyagoon ku kala raaricin iyagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in uun mar laga baxo 20 sano ku dhowaadka hababkii lagu soo dhaqmayay oo lagu soo xulayay wakiilada siyaasadeed ee shacbiga Soomaaliyeed wax ceeba u yeeli mayno loomana yeelino waqti adag baa lagu soo gudbay laakiin shacabka Soomaaliyeed wuxuu sugayaa in laga gudbo nidaamkaas oo mar uun ay doortaan madaxdooda arrintaas oo lagu nuuxnuuxsaday madaxweynuhu waa ka jawaabay wuxuu ku jawaabay in dowladdiisu ay aaminsan tahay waxa xisbiyadu shalay ay soo jeediyeen in doorasho dalka ka dhacdo waqtigeedana ku dhacdo sanduuqna lagu soo doorto golayaasha soo socda codka inuu dhiibto shacabka waxaa ragaadiyey xildhibaano iyo golayaal qaran oo aanay iyagu dooran ama oo u dooray shakhsi ama shakhsiyaad u dooreen kaas marka waxaa la xisaabtami kara shakhsiga ama shakhsiyaadkii siiyey kalsoonida laakiin shacabka Soomaaliyeed wuxuu u ooman yahay xildhibaano ay doortaan sanduuqna ku doortaan lana xisaabtamaan
oo xuquuqdooda soo dhiciya oo guta waajibaadka loo igmaday. arrintaasoo aada loogu nuuxnuuxsaday dhinaca madaxweynaha iyo dhinaca xisbiyada aqlabiyadda ahee shalay shirka ay wada galeenba isku aragtiya laga noqday, ballankaas ayaana la wada galay. dhinaca kale waxaa ka soo jeeday ama ka soo jeeda xisbiyo kale haba tiro yaraadaano, walow aan maqlaynay waayahan xisbiyada ugu culayska badan, xisbiyada ugu awooda badan. ma jiro xisbi ka awood badan, ma jiro xisbi ka culays badan. waa xisbiyo siman oo shahaado wada haysta oo si sharciga ku diiwaan gashan. marka haddii miisaanka xisbiyadu uu 100 kiilo yahay, 100 kiilaa la wada yahay. hadduu 50 kiilo yahay, 50 kiilaa la wada yahay. waxaa culays badi doona oo awood badi doona xisbiga shacbiga Soomaaliyeed oo kalsooni siiyo. bartilmaameedkaasaan ku soconnaa. arrimaha kale jahawareerka waxaan qabaa in ummadda laga daayo. walaalayaal, shacabka Soomaaliyeed meeshaas ayuu u socdaa inuu doorto madaxdiisa. waxaa kaloon rabnaa inaan hoosta ka xariiqno, shalay aada baa loogu nuuxnuuxsaday xisbiyo siyaasadeed ama madax xisbiyo siyaasadeed ee dowladda iyo shacabkaba qalalaase joogto ah, hanjabaado iyo dhaar loo dhaaranayo in la qaxinayo shacabka iyo dowladdaba. cidda sidaas ku sifaysanu ma aha xisbiyo siyaasadeed, maaha. xisbiyo waxaa loo dhistay inay dimuqraadiyad hirgeliyaan, inay xukun sharci keenaan, rule of law, inay hoggaanka dalka u tartamaan, in dowladdi dhalata ay dhaliilaan hadday khaldanto iyo waddada ka leexato, inay toosiyaan, tilmaamana siiyaan. ma ahan inay burburiyaan iyo inay caqabad ku noqdaan. siyaasadda Soomaaliya mas-uuliyiinta faraha badan ee ama xilal hore usoo qabtay ama ay u cusub yihiin ama haddaba xilal u haya siyaasadaha isdiidan qayb ka ah, waxaa shaqadooda inta badan qaatay dowladdan sidii loo curyaamin lahay, sidii loo kufin lahay, sidii loo dhibi lahay ayaa laga shaqaynaya. war dowladda haddii la dhibo oo jidgooyo loo sameeyo oo la carqaladeeyo, yaa u shaqaynaya ummadda Soomaaliyeed in loo shaqeeya la rabaa. ciddii wax isku hayso xukun doonaysa, shacbiga Soomaaliyeed ha salaaxato, markii doorasho la gaarana ha codsato. laakiin habdhaqanka siyaasadda Soomaaliya maanta jira wuxuu u qeybsan yahay inta shalay dooday in hal qof isagoon khilaafin 33 xisbi isku waafaqeen in dalka doorasho ka dhacdo, in dalka xisbiya tartamaan, in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo oo dowladda Soomaaliyeedu ayna isku dayin muddo kororsi iyo marmarsiino. waxaan rabaa inaan ila wadaago shacabka Soomaaliyeed, doorasho ayaa ka dhacday waayihii ugu adkaa dalka Afghanistan, magaalada Kabul oo 80% ay Taliban ka talinayeen. doorashaduna waa dhacday. waddankeenu waa ka roon yahay Taliban iyo Afghanistan, in doorasho ka dhici kartaan aaminsan ah. siyaasiyiin leh dowladdu waa inay sheegtaa cod iyo qof doorashahu ma dhici karto ayaan la soconnaa. xaggee noo wadaan kuwaas iyo kuwa lamidu waxay noo wadaan inaan laga bixin dhibaatooyinka, in doorashooyin dadban iyo muddo kororsi iyo laga shaqeeyo. waxaan xasuusanaa qodobada dastuurka qaranku uu tilmaamayo. qodob baa sheegaya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka waxaa si toos ah u dooranaya shacabka Soomaaliyeed.
qodob kale wuxuu leeyahay aan isleeyahay waa qodobka 64 ee dastuurka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed ama baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaa dooranaya shacabka dowlad goboleedyada labadii doorasho la soo dhaafay waa la baalmaray dastuurka iyo sharciga 2012 iyo 2016 heshiis siyaasadeed lagu keenay inta la baalmaray dastuurka dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha ka yahay waxaan ugu baaqaynaa inaan mar saddexaad la jibin dastuurka ummadda in sida uu qoraya shacabku doorto xildhibaanada golaha shacabka dowlad goboleedana doorto xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa hirgelinta dimuqraadiyadda waa ka jawaabidda rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxay mar uun sugayeen codkooda inay ku doortaan wakiilada siyaasadeed ee golayaasha qaranka iyo madaxdooda qaranka si ay u noqdaan kuwa ay la xisaabtami karaan hadafkaas in waqtigiisii la joogaan aaminsanahay xisbiyada siyaasadda ee aaminsan rabitaanka shacabka ee aaminsan danaha ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedba jidkaas ayay ku socdaan doorasho dadban iyo mid ka sii dadban iyo waqtigeeda waa la gudbay waxaan rajaynaynaa shirki shalay ka dhacay wiila Soomaaliya wadada uu xaaray in la maro wadada uu falay in la maro waxaana uga mahad celinayaa dhammaan hogaamiyaashii iyo guddoomiyaashii iyo wakiiladii xisbiyadii shalay 33 ahaa ee ku kulmay wiila Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha inay baal dahab gali doonaan inta ka maqneed ee ku fikiraya ku soo biirtan inay baalka dahabka wax ka gali doonaan ciddi barnaamij kale iyo lugooyo kale iyo ummadda Soomaaliyeed in la dhibaateeyo ku fikiraysa ha ka waantoodan leena hadday ka waantoobi weysa shacabka Soomaaliyeed ayaa laqsiinaya dantiisu meesha ku jirto looga aaba yeeli maayo qofna waqtigaas waa dhamaaday baal cusub ayaa u furmaya ummadda Soomaaliyeed dowladda madaxweyne Farmaajona waxaa laga rabaa shalay sida lagu wada hadlay ee uu ballan qaaday inuu shacabka Soomaaliyeed la wadaago waxaa laga yaabaa golayaasha dowladda in qaarkood aanay aaminsaneyn waxaan sheegayno hadday jiraan waa kuwa riyoonaya waa kuwa ka soo horjeeda danta shacabka Soomaaliyeed aad baan uga xumahay dalkan khayraadka badan oo cimilada wanaagsan Ilaahayna siiyay in shacabkeenu ku dhex baahan yahay khayraadka dalkeenu inta shacabkeena ka soo wada haraan ay quudin karaan qaaradda Afrika iyo ka shisheeye sidaas darteed wuxuu u baahan yahay shacabkeenu hoggaan saalaxa oo daacad u ah dalka iyo dadka iyo diinta hoggaan saalaxa oo ku hogaamiya cadaalad iyo sinaan hoggaan saalaxa oo qira sareynta sharciga iyo qawaaniinta dalka waxaan isleeyahay waqtigeeda la joogaa shacabka Soomaaliyeed oo la xisaabtama madaxdiina doorta madaxdiina sanduuq ku doorta wixii hadda ka horeeyay nidaamkii lagu soo dhaqmayay ee qabaliga ahaa ee awood qaybsiga 4.5 ama 4.5 ee nidaamka federaalka ah
dowladdii bilowday ee allah u naxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf hogaaminaya ayaan ra-iisul wasaaraheedii ahaa 3 sano. hirgelinta nidaamka federaalka iyo wax ku qaybsiga nidaamka qabaliga dowladdaasaa bilowday ilaa aakhir ma iska wadayna macquul ma waqti loo baahan yahay ahayd in laga gudbo ayaana qorshuhu ahaa. waqtigii laga gudbayaa la joogaa. waxaan u hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed oo u bislaaday inaan mar dambe lagu awrkacsan karin. awrkacsi iska diida, siyaasi danagaarale iska diida. cidda idin matalaysa iyo cidda idin shaqaynaysa gacantiinay ku jirtaa awooddu. gacantiinay ku jirtaa awooddu. go-aankana idinkaa leh. go-aan dambe la idin qaadi maayo. maalinta aada go-aankiina saxiixaysaan ayaa la idinka rabaa inaad ka fiirsataan. yaa xambaari kara ummadda, yaa guri barwaaqo dejin kara, yaa nabadeyn kara, yaa cadowga dalka ka ilaalin kara, yaa xuduudaha cirka iyo dhulka ee badda ilaalin kara, yaad ku aamini kartaan. gacantiinay ku jirtaa haddaad tihiin shacabka soomaaliyeed meel kastoo aada joogtaan. waxaan rajaynayaa shirki shalay sida madaxweynuhu ballan qaaday inuu sii socdo. xisbiyada oo dhan inay wada tashiga qayb ka noqdaan. saamilayda siyaasadda qaranka xisbiyada ka mid a waa sharci in wada tashiga ay ka qayb galaan. in haddii dhibaata dalka ka jirta nala ka warsado xalka sida loo helaya qayb baan ka nahay waanaan tilmaami karnaa. xisbiyadu siyaasaday ka shaqeeyaan, beera ma falaan, xoolana ma ilaaliyaan, mana ganacsadaan. shaqooyinku waa qaybsan yihiin. dowladda waxaan diyaar u nahay wixii culays ku ah inayn la wadaagno, laakiin hadday noo sheegato. haddayna noo sheegan ee caloosheedu ku haysato dhibka keligeeda arkaysa. laakiin hadday dhibka tilmaanto waxaa garab taagan muwaadiniin soomaaliyeed oo qaybaha bulshadoo kala duwan ah oo xisbiyada siyaasadda karinaya ay ugu horeeyaan. soomaaliya gadaal looma celin karo. soomaaliya dhibkay soo martay muwaadin og ama arkay ama xasuustaahu isku dayi maayo inuu hor istaago. siyaasiyiinta soomaaliyeed ama ha ahaadaano xisbiyada ama kuwa madax bannaan ha ahaadaano, walaalayaal waxaan idinkugu baaqaynaa inaad qayb ka noqotaan xasilinta dalka, nabadeynta dalka, dimuqraadiyeynta dalka, horumarinta iyo dib u dhisiga dalka, ee aydan ka mid noqona kuwa ummaddu inkaarto rajabeelka iyo naxdinta ku rida shacabka soomaaliyeed markay hadlaanba. dowladdana waxaan ugu baaqaynaa inay dowrkeeda cayaarto, inay hoggaanka dhammaystirto. doorashada aan ka hadlayno oo maanta o dhan aan fasirayno oo shalay o dhan laga hadlayana inay diyaariso. shacabka soomaaliyeed waxaa dhibay hoggaamiye isbedel markuu soo socdayo doorashooyin isku cabira shaatiga qaranka asagu. horaan usoo aragnay waana lagu khasaaray. waxa loogu khasaarana xaqdarrada laga shaqaynaya waayo. isbedelka shaatigiisa waxaa la rabaa in ummadda loo tago, ee inta lagu tartamo xisbiga ku adkaada ama ku guuleysta lala shaqeeyo. ciddii waxay isku haysa inay ka diyaar garowdee mustaqbalka haddana doorasho u diyaar garowda. laakiin anaa isku cabiraya. maadaa iskale, maadaa gatay. shacabka soomaaliyeed danihiisa qofna iskuma cabiri karo. qof laga yeelaya ma jirto. xuquuqdooda waa yaqaanaa, shacbiga waa yaqaanaa xuquuqdiisa. waxaan rajaynayaa in intaasu noogu filaato warbixin shalay shirki ka dhacay villa soomaaliya ee 33 xisbi iyo madaxweynuhu wadaageen kuna dhammaaday jawi aada u qurux badan. madaxweynena loogu hambaliyeeyey inuu bilaabay shaqadii rasmiga ahayd ee astaanta u noqon karta geedi socodka doorashooyinka soo socda ee qof iyo cod iyo xisbiye ah.
aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.